Waa qaybtii labaad sheekadii guursatay maxaad uurka u xaaqday. Aad ayay gabadhii ii qurxisay waxayna ii saartay ilaan aad u quruxsan waxaa lay xiray taaj waxa la gaaray saacadii galbiska waxaa ii imaaday habaryartay iyo gabdho ka socda deriska waxay ii sheegeen inay i wehlinayaan waxaan anigu ahay qof aan markaa hadlaynin oo taladeediiba baahsan tahay mana ooyi kari oo indhahayga ilmadii ka dhammaatay. Waxay sheekaystaan dadkii arooska u imaaday oo ay qoslaan farxadna muujiyaan anigu waxaan ku jiraa mawjad aad u muruga badan waxaana ka sii fikirayaa qofka lay wado ee laygu qasbay waxa aan kala kulmi doono iyo noloshaydu siday noqon doonto. Waxaa la keenay geryaal badan inkastoo aanan geryadaas tiro ahaan garanaynin intay ahayeen haddana sawaxankoodu ma yarayn. Waxaa lay saray gaari kuwa raaxada ah waxaana ila soo galay gabadha malxiisada ii ahayd iyo habaryartay. Aniga waa lay mamulaya gacanta lay qabanayaa waxaan ahay qof sidii la rabo laga samaysanayo waxaana la bilaabay in nala wareejiyo magaalada kolbadhan kaga nimaano anakoo baabuur badan wadana haddana intaas hoonka baabuurada yeerinayna aniga waxaan ahay weli qof aan hadlayn ma faraxsani meel la socdo ma eego dadka qayladooda xataa ma siinayo dareenkayga balse noloshan aan galay ayaan ka fikirayaa sidaan uga bixi lahaa. Waxaan soo garnay gurigeenii oo malaha la rabay in aniga hooyaday ila yara dardaranto lana soo raciyana alaab aniga lay soo gaday iyo oodkicii arooska waxaan markii gurigana soo gaarnay irida iga furtay gabar aanan markaa garanaynin ciday ahayd iyo wejigeeda waxayna i qabatay garabka. Buraanbur iyo qaylo ayaa laysku daray haweenkii meesha joogay aniga waa layska kay wataa waxaan soo galay qol aan anigu seexan jiray oo hooyaday eedaday iyo habaryartay joogaan waxayna idaheen soo fadhiiso sariirtaan dusheeda waan fadhiistay waanana loo kala baneeyey guriga intanaadii waalidka isku ahayd ma ahane. Hooyaday waxay i dhahday hadalkan hooyo guurku waa waxaan u wada joogno haddaynan dhiman caawa waxaad tegaysaa guri aan kaaga ahayn waxaad la dhaqmaysaa dad aadan weligaa arag oodan aqoon. Hooyo dabeecadahaaga ha noqdaan kuwo leh dulqaad iyo deganaan hooyo ninkan aad hadda xaaskiisa tahay ka dadaal u noqo nolol uu ku raxaysto oo uu ku dago hooyo hadalkaaga oo wanaagsan ma ahee xumaantadayaysan ii imaan. Hooyo noqo gabadha ka adkaata reerkeeda hooyo waan ku duceeyey oo waanu ku jecelnahay noqo baariyadan soo korayee ii daga nuglayd hooyo noloshada reernimo ha noqoto midaad ku faraxdo ku noolaato inta noloshada ka dhiman. Hooyo waxba ha ooyin oo hays iilkaambin noloshada meel wanaagsan ayay gashee aabbaha walaalaha iyo waalidkaaba way kuu soo duceeyeen hooyo iskaa wax u qabsoo noqo mid qoyskeeda ka adkaata. Habaryarahay iyo eedaday ayaa ayakuna hadallo dardaaran guri ah isoo jeediyey waxayna inta badan igala hadlayeen inan ninkan ku qanco oo waxba samaynin noqdana qof hadda kadib odaygaas ma ahe meel kale aadin. Waxay ka baqayaan inaan meel u baxsado ama noloshayda wax ku sameeyo balse aniga noloshayda wax go'aan ah maysanba gaarin waxaan ka fikiraya waa noloshan farxada aan lahayn een galay balse wax kale noloshayda weli maysanba ka fikirin hooyaday iyo waalidkayna waxay ii sheegayaan. Waxay ku dhacayaan dhegagayga oo qura balse qalbigayga uma daadagayaan waayo way i jujubayaan cid noloshayda wax iga weydiinaysa malahan waxay rabto. Waxaa la gaaray saacadii lay geyn lahaa gurigaygii waxaa isoo qabtay garbaha habaryartay iyo eedaday oo i galbinaya waxayna i saareen gaariga dadka madashaas arooska joogay waa ay wada mashxaradayeen wayna buraanburayeen waxaana ku dhacnay dhanka iyo waddadii gurigaygu ahaa halkaas waxaa nagu sugayo dad fara badan oo ka qaybgalayaasha arooska ahaa inkastoo aanan dadkaaba dan ka lahayn farxaday dareemayaana aanan anigu dareensanayn haddana waxaaba ahaa qof iska socda oo layska wato. Waxaan wareeg dheer mar kale ku soo galnahay goobaha magaaladu ugu bilic qurxoon tahay dadkuna ay wada joogaan waxaana inta badan dadku istagayeen waddada geesaheeda ayakoo eegayo gaariyada badnidooda iyo dhawaaqa ama sawaxanka dadka saaran gawaarida waxaana hor socda marna gadaal naga maraya marna dhinac gaari kale oon malaha is-iri waa kaloyanyo oo lacag lagu siiyey inuu duubo arooska iyo hadba meesha aan marayno run ahaantii aroos wanaagiis waa uu ahaa arooska lay dhigay balse horaa waxaa loo dhahay cunto aadan ku qanacsanayn cunisteeda hadday xataa lacag qaaliya ku fadhido waxaa ka wanaagsan cunto aad ku qanacsan tahay oo lacag yar. Waxaan soo galnay gaariyadiina soo istageen gurigii aroos ku ahaa oo laygu galbin lahaa ninka lay siiyey dibadda uu ka imaday waxa uu ahaa nin alle maal u dhiibay dadka faraxsan ee durbaanka tumaayo waxaa ku jira ilmihiisa waaweyn qaar aniga waa i dhali karaan balse aniga maxaan sameeyaa calafkaa sidaas sameeyee ciilku badanaa calool xumadu weynaa waxaan soo saaray cagta roog guduudan oon ku arki jiray in madaxweynayaasha loo dhigo oo keliya ama dadka la sharfaayo qaylada buraanburka. Mashxarada oo dadkii ugu yaqaana mashxarada laysku keenay ayaa wada jooga goobtaan waxaan socsocdo oo ubaxyo iyo wax birbirqayo laygu daadsho waxaan markii dambe soo gaaray halkay yaaleen kuraasta aan ku fariisan lahayn aniga iyo ninkayga. Waxaan salka saaray kursigii waxaana cabbaar la waday buraanburka waxaa istagay hal mar dhawaqii oo dhan waxaa la daaray laydad badan waxaan galnay amusnaan. Waan naxay maxaa dhacay ayaan isdahay ileen xajigayga ayaa soo galayo goobta oo guriga ku jiray.
waxaana la daaray hees aroos oo halmar dagahayga qabsaday dadkoo dhanna ay carabka ku wada hayeen. Heeskaas ayaa dadkoo dhan ka wada dhigay kuwa isku mashquulay oon cid iska taagan aysan jirin. Waxaa la soo dadahayo sidii ciyaalkii odaygayga ayaa waxaa la keenay agtayda kursiga igu xiga. Waxaana aniga iska noqday qof meesha iska fadhiya. Maxaa dad meesha iskugu imaaday? Sawirkaas waxaad ka garan kartaa aroosyada dadka qaniga samaystaan sida madashaas tahay oo kale ayuu ahaa arooska. Wax la ciyaaro oo la heeso. Waxaa la gaaray wakhtigii la jari lahaa keega ama toortada arooska, waxaana la daaray hees jawi degan ah. Waxaana labadanadiiba wada imaanay madashii uu yelay keega oo markaas laga soo saaray guriga gudihiisa. Waxa dhacday in markii iigu horeysay odayga uu qabtay gacantayda wuxuuna idhahay, xabiibi keen gacanta aan si wada jir ah u jarnee keega. Aniga hadalkiisa ma u dhigin dheg balse asaga qabsaday oo mindida u dhibay, kadibna si wada jir ah ayaan ku jarnay. Kadib waxa uu galshay afka in yar oo keega ah, ana sidoo kale waan u galshay ileen xaajo murugtaye. Waxaana mar kale la daaray hees kale. Indhahayga ayaa halmar waxaa ku soo istagay ilmo aan yarayn, balse waxaan ka baqay in ilmadaas wada arkaan bulsho weynta meesha iskugu timid. Waan celshaday oo uurka ayaan ka ooyey. Heesaha lay daarayo, madasha quruxda badan iyo naftaydu siday u oynayso una dhiban tahay ayaan isku mid ahayn. Waxaana la gaaray gabagabadii arooska iyo sagootinkii dadka, iyo anakoo arooska ah la sagootinayo. Qof kasta waxa uu la soo baxay moobeelkiisa, waxaana uu qatay sawir aniga iyo odaygii oo isla fadhina. Waxaa qof kastaba doonaya waa inuu arooskan qaaliga ah dhigtay odaygaas una dhigay gabadhaas uu guursaday dhigo baraha ay bulshadu ku kulmaan. Waana dhacdaa in aadba arooskaas aad aragteen oo hadda aynan xasuusan. Waxayna dadkii dhaheen halmar aroos lagumana raago. Waxaa la daaray hees qurux badan. Waxaana galnay heeskaas oo socota qolka jiifka aniga iyo odaygaygii. Alla murugto weynaa, ma aqalkan baa laygu cidlayni doonaa? Dadkii soo kan imacsalaamaynaya. Hadba dadka sida ay noo macsalaameynayeen ayay waxay noqotay goobtii la buxay meel cidla ah oon sawaxan lahayn. Heesihii iyo ciyaartii wala istaajiyey. Aniga iyo odaygiina waxaan ku jirnaa aqalka cabaar, waxaan kala aamusnaynba. Waxaa noo soo gashay gabadh aan ku qiyaasay ilaa 5 dhal oo dhahaysa, abbe cashadaan idin keenayaa. Dhahaysa adiga iyo eedo ee iska badala dharka. Anigii wan naxayba markii aabbe dhahday. Waxa uu dhahay, haye aabbe waan iska furaynaa. Intay armaajo furtay ayay ka soo bixisay dhar aan iskaga bedelo taashka. Waxaana odaygii dhahay, aabbe aniga qolka fadhigaan tegayaa ee eedadaa hayska badasho marka hore dharka. Waxaana gabadhii idhahday, eedo soo istaag, dharkaan xiro, taashka iska saar. Aan ku cawiyee waan iska saaray, waxaana xirtay dhar kale. Waxaan dhahay, awey musqushii. Waxay idhahday, eedo waatan gal qolka ku dhex taale. Waan iska weysaystay, waan soo laabtay. Markasaan dhahay, waan tukanaya. Waxay idhahday, waa xagaas qibladu ee u tuko. Waan tukaday cishaa iyo maqrib oo idhaaftay. Waxaana alleh ka baryay sharka odayga inuu iga hayo, magana u ahay Allah. Waxaa soo galay odaygii anigoo qolka iskaga jira kuna fadhiya sariirta. Wuxuu idhahay, gacaliso ii waran see tahay? Ana waxaan dhahay, waan wanaagsanahay. Markaas ayuu macawis qaatay iyo fanaanad dharkii suudka ahaana iska saaray. Wuxuuna galay musqusha oo uu soo qabaystay. Aniga naxdin walaal kurbo ayaa i hayso la hoyitaanka odaygan iyo caawa cabsida isoo hoyatay markaan guriga naga iska joogay. Iska ooyayey wax ayay ahayd. Haddase waxaan galay af libaax. Waxaan dhex hoyday kayn wada libaaxyo alla noloshu adkaa mararka qaarna xumaa. Waa u soo qabaystay. Wuxuuna u kacay salaad inuu tukado. Waa uu tukaday, waa ducaystay. Waxaana uu u soo jeedsaday dhankaygii. Xaawo luul ii waran caafimaadkaga waa see maynan isbaranay? Waa uun ku soo doontay. Ammaantaada ayaa isoo gaartay anoo dalka guur u imaaday. Waxaana lay sheegay inaad qof wanaagsan tahay oo dhammaystiran. Allena siiyey aqoon iyo garasho. Anigana sidaas ayaan kaga soo doontay reerkiina. Marka ilaahay ducadaydii iyo rajadaydii waan helay. Alle haynaga dhigo qoys wanaagsan. Anoon wax hadal ah dhihin ayaa gabadh kale soo gashay oo wada casho. Waxayna dhahday, adeer kaalaya casheeya. Waa weyahay halkaas noo dhig. Intuu dhahay ayuu istagay oo idhahay kalay xaawo luul cashaynee. Gabadhii waa iska baxday. Aniga iyo asaga oo qura ayaan noqonay. Mar kale aniga casho ma doonayo ee keligaa cashee ayaan dhahay. Maxaad u cashaynaynin ayuu i dhahay. Waxaan dhahay, anigu ma awoodo wakhtigan inaan casheeye. Cashee keliga ayaan dhahay. Waa iska casheeyey caano ayuu idhahay. haddana kalay cab. Ana ma doonayo ayaan mar kale ku dhahay. maxaa diidan tahay ood cashada u diidaysaa ood caanaha u diiday? Walaashay maxaa kugu dhacayna? Wax igu dhacay malahan. Aniga cadi ayaan ahay. Waana aragtaa maxaa haddaan diido cashada ma dhib ayaa jira? Aniga hadday baahi i hayso wax waan cuni lahaa. Intuu qoslay ayuu idhahay, wax kale ayaanba u haystay inaad ku diidayso. hayga baqan, waan ogahay waxaad tahay gabadh yar oon weligeed nolol hore soo marin. Marka waa gartaa inaad baqdo. Wuxuuna aaday dhanka iyo albaabkii oo soo xiray. Aniga naxdin ayaan meelna qaban waayey. waan iskuusay. wuxuu idhahay, gacaliso maxaa kugu dhacay ood isla kuusaysa? caadi weye, waxaan ha baqan. Intuu isoo garab fadhiistay ayuu gabarka gacanta iga saaray oo damcay inuu i dhunkado. anigoo iskala garanaynin ayaa halmar istagay oo ilmeeyey. Markaas ayuu idhahay, maxaa kugu dhacay? xaaskaygoo xalal ah ayad tahay, maxaad iga cararaysaa?
waxaan ku dhahay kaama cararayo waan kaa baqayaa waa habeenkii igu kaa horeeyey anigana waan baqayaa wana kaa cabsanayaa ee maxaa adiga iga rabtaa wataa sariirtada seexo balse waa diiday aniga xaskaygaa tahay iskama seexanayo waxaan doonayaa inay nolol ina dhex marto oon nolosha wada qaybsano marka xaawo luul isdajireer ayaan nahay waxaad tahay xaaskaygii aniga wax dembi ah kuguma samaynayo xaaskaygii ifahan oo noqo qof aan cabsanaynin markuu saas i dhahay ayaan aniga oo ishayn waayey oo ii afka furtay iska kaydaa aniga waxaan ahay gabadh aan guur u jeedin waxaan doonayay inaan wax barto balse reerkayga ayaa igu kaa khasbay aniga noloshayda adiga kuma rabin kumana jeclaan ee adiga ayaa aniga isoo doontay marka aniga maalintaa isoo diyonatay ilaa caawa waxaan ahay qof bilaa farxad ah oo oynaya oo keligiis meel iska fadhiya waxa uu i dhahay hadal adag oonan islahayn waa uu ku dhahayaa gabar waxaa dhaqi kara nin ka weyn aniga waan ku dhali kara waxaana dhalay dadkaa waaweyn waan ogahay aabbaha iyo reerkiina waan kaa soo doontay wayna i kaa siiyeen waxba ha ooyin oo hays eylkaanbiyin aniga waxaan ahay ninkaaga ma tihid sidaadii hore wax barasho intaad baratay ha kuugu ahaato aniga xaaskayga waxaan ku dhahayaa oohin wax kuma tarayso ee reerkaga dhaqo oo noqo qof noloshaan ku faraxsan intaas marka uu i dhahay ayuu isoo aaday oo go'aan watay iga dafay waxaana noqday bilaa garbisaar alla naxdintu weyna meel ayaan iska taaganahay wuxuu isoo qabtay gacanta oo isoo fariisiyey firaash yaalay dhulka waxa uu doonayay inuu aniga wax iga raadsado waxa uu isku dayey marka uu jodariga igu soo fariisiyey inuu qasab wax iigaga qaato waxaan dhahay alla waxaan ahay fasax iska kaydaa waan ku baryayaa aniga fasax ayaan ahay oo waxaan ku jiraa maalmihii fasaxa ahayd balse waxa uu dhahay waan ogahay inaadan fasax ahayn ood aniga igaga dhuumanayso balse waxaas kuu socon maayaan ee xaaskaygay inaad nolosha si haboon u wada qaybsano ayaa wanaagsan yaan ummadu hadalkeenu maqlin balse waan ooyey waxaana dhahay been aniga ma sheegaya idaa xoog hay sheegan ee maxaa dhacay ma aniga meel aadayo maalmahan way dhammaanayaa balse nin ay meel u cadahay meeli u madow waxa uu markaan bilaabay inuu xoog wax igaga qaato waxaan wada xarbino oon isdagaalno anigana aan xagxagto oon la dagaalo waxa uu ila dhacayay asagana dharbaaxyo iyo inuu gacmahayga iska qabto oo iska ilaalsho xagatimaha inay wejiga ka gaarto waxaan ahaa gabadh aan awood badan u lahayn inay nin xoog iskaga celiso waana igaraacay markii dambe inta uu soo qaatay suunkiisa ayuu aad iila dhacay oo idhahay haygu kelifin wax kaaweyn inaan kugu garaaco suunka aniga ma baroonanaynin mana dhawaaqaynin balse waxaa marka dambe aan noqday qof tabar dheelay oo daalay waayo malmo badan ayaan ahaa qof aanan wax cunin oo oynayay wuuna igarayay waxa uu doonayeyna waa uu iga dhammaystay waxaan noqday qof iska aamusan oon cidna la hadlin xataa odaygayga lama hadlo markuu ila hadlo waxa uu doonayo ayaan u qabtaa mala sheekaysto waxa uu idhahaa maxaad u aamusan tahay oodan iila hadlaynin aniga xaskaygaa tahay waxaadna ilaa hadda tahay qofaan hadlin oo aamusan marka walaashay maxaa kugu dhacay aniga haddaba waxaan kuu sheegayaa inaad sidaan iska badasho waayo aniga haddaan sidaan kugu arko iska kay jir gacantayda kama baxsanaysid aniga waxaan doonayaa qof faraxsan oo shaqadeeda haysata hadda waxaad xaaskayga tahay muddo 6 bari waa 7 baxeena ee iskadaa sidaan waan kuu digayaa aniga reerkiina waan aqaanaa waa reer wanaagsan inaan isku xumaano ma doonayo ee sidaan isku dhaan waxaa la gaaray subaxii waxaana loo diyaar garoobay 7 bixii waxaana imaaday dad badan oo labada dhinac ah hooyaday waa ii imaatay iyo habaryarahay walaalahay gabdho ah balse yaryar waxaan bilabatay xalfadda shaashsaarkii waxaan muddo badan ku maqshuulsanayn shaashsaarka haweenka waxaa la cunay cunooyin fudud waxaa markii dambe qol wada galnay hooyaday iyo habaryartay waxaana u sheegay in ninkan idilo oo xoog wax igaga qaato habeen kasta mararka qaar uu suunkiisa igu garaaco hooyo habaryar waalidkay ayaa tihiin noloshayda saan kuma jiri karto ee igadaya noloshaan waan idin baryayaa ninkan ma doonaye waxaan doonayaa noloshayda inaan sii wato waxbarashadayda barto hooyo i fahma waan ooyey in badan balse maxaan sameeyaa hooyaday habaryarahayba waa ii aamusan yihiin hooyaday iyo habaryahayba wax kastoo aan u sheegay nabaradaydoon tusay cid wax i dhahday malahan waxa ay dhaheen hooyo waa ninkaaga wuxuu kugu garaacayo iskadaa nolosha uu kaa damco eed u diidayso iskadaa waayo waxa uu kuu dilayaa ayaa ah inaad noloshaada u diidayso hooyo dhaqo reerkaaga oo noqo qof furfuran oo reerkeeda ninkeeda u roon noloshadu wax ay raadiso ma arkee afka dheer habuusine gabaryahay joog oo halkas ku ilmo dhal habaryartayna waxa ay i dhahday gabari waa gurigeeda waana waxa ugu qaalisan ee mas-uulka ka tahay ee ay maamusho waa nafteeda ninkeeda reerkeeda ee waxa ay hooyadaa kuu sheegayso qaado oo hays indho tirin oo hinta badan iskadaa waxaan kuu sheegayno waan ku dhalne fahan oo qaado waa kan aad ku moodo habar 9 jir ah sidaad u weynaysaye quruxdaada xataa waa beddelantee marka waxaad samaysaa noloshaada ka fikir iyo ilmahaaga iyo reerkaaga aabbaha waad og tahay noloshuu kugu soo koriyey maanta nolol wanaagsan ayuu ku keenay waxa uu ku keenay nin wanaagsan ee wax fahan gabar yahay oo isdeji waa hadal weyn ee fahan warka waalidka
habeenkii waan iska shaqaystay waxaana dareemay haddaan sidan sii ahaado inaan noloshaan ka sii baxaybin oon ku deganaan halkan waxaan isweydiiyey sida aan meeshan kaga bixi karo inay tahay inaan noloshaan la qabsado oon ku meel gaaro odaygan noloshaydana aan xalkeeda raadsado waxaan sameeyey inaan subaxdiiba aniga intan kacay inaan cuno u sameeyey oon wax kastoo xaafadda howl ah qabtay gabdhihii malxiisayaasha ahaana dhahay u kaadiya reerkayga anaa ku filan way ku farxeen waxayna dhaheen waa wax wanaagsan odaygaygii oo jiifa ayaan wax kasto la soo sameeyey waxaan u keenay quraacda markuu soo kacay ee qabaystay waxa uu la yabay isbeddelkan wuxuuna i dhahay macanay waxaadba noqotay qof kale maxaa kaasi ah waad isbeddeshay manta waaba i farxad ee maxaa jira waan arka noloshaada say tahee waxaan dhahay wax jira malahan haddaan ku kariyo cunnada ma wax ayaa jira aniga noloshaydu waxay ii sheegtay inaan guurka ku qanko oo aan noloshayda reernimo aan aqbalo waana ku dhaqaaqay wax kasta reerkaygana waan ka adkaan karaa ee wakaas waa u quraacday waxaan u soo baxshay dar uu ku baxo waxa uuna baxay asagoo faraxsan waxaan u diyaarshay qado iyo cabitaan waxaan u sii dhigay fadhiga markuu soo tukaday ayaan dhahay qabayso oo naso kadib qadadiina waan wada cunay markaas ayuu sii farxay dahayna macaanay waxaanba islahaa weligeed kulama cunayso cuno balse waa ii farxad maanta qureecdaad ii samaysay farxadaan ka qaaday ragaan la shaahinayay ayaa iga dareemay oo waxaan u sheegay in aan ku faraxsanahay guurkayga xaskayga oo ii samaysay cunadii koobad markaasay idhaheen waadba walantaha sawdigii qumanaa ma cuno xaskaaga kuu samaysaa ku farxaysaa marka qaali waan ku jeclahay xaskaygay ii noolow inta igu dhahay ayuu madaxa iga shumiyey